بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بن آذنك الله وحسيه أودك لدوان إيه علمك لدوان هدي ضدك أردن اسكو أود اسكو علمي والله كديق لها الديدة معنى ملهاتين وحكمة الله اكتسا إنه قتمت كالدواناشيها بن آذنك برنامج كان وحان إنكو وصو قد بنينا طبعا كنين أدونك أقوحو قوين هنقطو كوا أود أوله قادد وحيابها عليسكا كوا جيركو ذا لقدين gacmaha iyo legdinta kale hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada kale oo aan idin soo wadno kaalinta tobnaad waxa ku jira Ulubayaan Bayanbajaaf wuxuu u dhashay Mongolia dhirkiisu waa 6 feet iyo 1 inch culayskiisu waa 152 kilogram wuxuu ciyaaraa ciyaarta legdinta ee wadamada indhayarta laga ciyaaro wuxuu ciyaaray 100 ciyaar iyo in ka badan inta badan wuxuu ku raayay dahab ciyaarta legdinta adduunka oo dhan loo qabtana 2 jeer ayuu guuleystay wadamada uu ka badiyay waxa kamid ah Japan, Mongolia, Thailand, US, Italia iyo Germany. kaalinta sagaalaad waxa ku jira Hafbor Julius Johnson wuxuu u dhashay wadanka Iceland dhirkiisu waa 6 feet iyo 9 inch culayskiisu waa 180 kilogram waa jilaa filimada Hollywoodka wuxuu ciyaari jiray kubadda basketballka 31 January 2015 wuxuu ka qayb galay ciyaar Viking competition oo lagu qabtay Norway wuxuuna qaaday 650 kilogram wuuna guuleystay. kaalinta sideedaad waxa ku jira Mark Henry wuxuu u dhashay America dhirkiisu waa 6 feet iyo 4 inch culayskiisuna waa 187 kilogram wuxuu ciyaaraa ciyaarta wrestlingka iyo ciyaarta culayska la qaado dhowr jeer ayuu ku guuleystay culays la qaado waxaana ugu weynaa marka uu ku guuleystay 456 kilogram. kaalinta toddobaad waxa ku jira Dmitro Khaladshi wuxuu u dhashay Ukraine dhirkiisu waa 6 feet iyo 1 inch culayskiisu waa 126 kilogram waa nin ciyaariyahan ah wuxuuna ciyaaraha kala duwan uu sameeyay ku guuleystay 63 jeer. kaalinta lixaad waxa ku jira Ryan Kennedy wuxuu u dhashay America dhirkiisu waa 6 feet iyo 3 inch culayskiisu waa 154 kilogram wuxuu ciyaaraha culayska la qaado ciyaaro badan ayuu ku guuleystay culayskii ugu badnaa ee uu ku guuleystana waxay ahayd 487 kilogram. kaalinta shanaad waxa ku jira Denis Zeblenkov wuxuu u dhashay Ukraine dhirkiisu waa 6 feet iyo 1 inch culayskiisuna waa 139 kilogram wuxuu ciyaaraa ciyaarta xooga gacanta ee dhulka la isdhigo wuxuuna ku jira dadka gacmahooda xooga badan isagoo dhowr jeer ku guuleystay ciyaarta gacmaha. kaalinta afraad waxa ku jira Mariusz Pudzianowski wuxuu u dhashay Poland dhirkiisu waa 6 feet iyo 1 inch culayskiisu waa 140 kilogram wuxuu ciyaaraa ciyaaraha waxyaabaha xoog la isugu faano iyo culayska la qaado tan iyo intuu ciyaarayay culayskii ugu badnaa ee uu ku guuleystay waxay ahayd 415 kilogram. kaalinta saddexaad waxa ku jira Eddie Hall wuxuu u dhashay Ingiriiska dhirkiisu waa 6 feet iyo 3 inch culayskiisu waa 182 kilogram wuxuu ciyaaraa ciyaaraha waxyaabaha culayska la qaado waana ninka kaliya ee ku guuleystay qaadista 500 kilogram gudaha wadanka Ingiriiska. kaalinta labaad waxa ku jira Zydrunas Zivikas wuxuu u dhashay Brazil dhirkiisu waa 6 feet iyo 3 inch culayskiisu waa 180 kilogram wuxuuna ku jira tartamayaasha culayska qaado kuwooda ugu xoog badan iyo intuu ciyaaray culayskii ugu weynaa ee qaaday waxay ahayd 524 kilogram. kaalinta koowaad waxa ku jira Brian Shaw wuxuu u dhashay America dhirkiisu waa 6 feet iyo 8 inch culayskiisuna waa 190 kilogram 2011 laga soo bilaabo ilaa iyo iminka waa ninka ugu xoog badan adduunka qaadista tartamada lagu tartamo qaadista culayska. waxaad ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan fadlan haddii aad ku qanacday daawashada fiidiyogan share garay si dad kale ay uga faa'iideystaan waad mahadsantihiin.